bilyaneer Mareykan ayaa ku dhawaaqay inuu doonayo inuu ku laabto oo uu soo eego burburkii Titanic. Dhacdadii Titanic waxaa hadda laga joogaa 112 sano, xilli saq dhexe ah oo ku beegneed Abriil 14 ilaa 15 sanadkii 1912. Titanic wuxuu ku quusay badweynta Atlantic. ku dhawaad hal sano kadib markii laga soo wareegay masiibadii Titanic, bilyaneer Mareykan ayaa ku dhawaaqay inuu doonayo inuu ku laabto oo uu soo eego burburkii Titanic si uu u xaqiijiyo in si badbaado leh loo tegi karo halka. Larry Connor oo 74 sano jira ayaa $20 milyan ku qarash gareyn doona markabka yar ee cusub ee shirkadda Triton Submarines, kaasoo uu xaqiijiyay wargeyska The Independent in qorshe uu yahay inuu booqdo burburka Titanic sanadka 2026. waxa uu la kaashanayaa Patrick Leahy, kaasoo leh in ka badan 40 sano waayo-aragnimo la xiriira markabka badda salkeeda lagu tago, isagoo ah maamulaha guud ee shirkadda Triton Submarines. Leahy ayaa hore u muujiyay walaaca uu ka qabo tallaabada shirkaddii Ocean Gate oo ah shirkaddii ka dambeysay musiibadii sanadkii hore 2023 oo ay ku dhinteen 5 qof. Connor oo ah bilyaneerka hantida mugurtada oo ka soo jeeda gobolka Ohio dalka Mareykanka ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal inuu rabo inuu dunida tusiyo inkastoo baddu awood badan tahay ay noqon karto meel cajiiba oo lagu raaxaysto, runtiina ay tahay mid noloshaada bedelaysa haddii aad u tagto waddadii saxda ahaa ee loogu talagalay. markabka cusub ee badda salkeeda uu ku tegi rabo waxaa loo yaqaanaa Triton 4000/2 Abyssal Explorer. 4000 waa magaca ku qoran, waxayna tilmaamaysaa badda hoosteeda ilaa inta uu gaari karo, kaasoo in yar ka badan halka uu burburkii markabkii Titanic yaalo oo ah 3800 mitir badda hoosteeda. waxay qaadaysaa dad yar oo keliya markii loo eego kii ay ku halaagsameen dadka sanadkii tegey, kaasoo qaaday 5 qof oo keliya, balse tan uu isaga qaadanayo oo bilyaneerkan waxaa raaci kara oo keliya 2 qof. shirkadda Triton Submarines ayaa u xaqiijiyey wargeyska The Independent in si ka duwan shirkaddii Ocean Gate aysan hadda lahayn wax qorshe ah oo ay ku bixinayaan safarro ganacsi oo dadka ay ku tegi karaan burburkii Titanic. si kastaba ha noqotee, waxay bixiyaan nidaam ganacsi oo ku kici kara ilaa $750,000 oo lagu tegayo halka u dheer dunida dhanka badda oo la yiraahdo Marina Trench. Connor waxa uu sharaxay in halka Leahy uu doonayay in la dhiso markabka badda hoosteeda lagu tegayo sida Triton 4000/2 Abyssal Explorer in muddo ah, haddana tiknoolajiyadii lagu dhisi lahaa ma aysan jirin oo dhowaan ayaa la helay. Patrick waxa uu ka fakarayay oo naqshadaynayay agabkan muddo 10 sano ah, laakiin ma aanan haysan agabkii tiknoolajiyadii, ayuu u sheegay wargeyska The Wall Street Journal. qalabkan cusub ee badda salkeeda lagu tegayo ayaa lagu soo warramayaa inuu ku kacayo lacag dhan $20 milyan si loo sameeyo. qalabkan cusub ee badda salkeeda lagu tegayo ayaa aad loo xayeysiinayaa inuu yahay kan dunida qaybta ugu dheer ee badda tegi karo oo leh agab u ogolaan doono inuu si fudud u maareeyo qaybta hoose ee badda. shirkadda Ocean Gate waxay ku dalacaysay dadka $250,000 safarka Titanic, waxayna rakaabka saxiixayeen warqad oo ah inay aqbalayaan suurtagalnimada dhimashada. shirkadda Triton Submarines waxay horeba u caddaysatay inay hormuud u tahay safarradan, iyadoo safarro kala duwan oo rikoor jebina oo ay ku jiraan safarka aan soo sheegnay ee Marina Trench ay sameeyeen. qaybta ugu hoose ee badda ee la yiraahdo The Marina Trench waa 10,984 mitir oo dheerar dhanka badda hoosteeda, waana in ka badan 2 laab qoto dheeri halka Titanic uu yaalo oo ah 3,800 mitir. marka loo eego shirkadda Ocean Gate oo iskeed u qirtay tijaabo safarka badda hoosteeda, shirkadda Triton Submarines waxay leeyihiin aqoonsi badbaado ah oo ay ka mid tahay Triton 36,000/2, kaasoo ah kan keliya ee si buuxda loo aqoonsan karo oo gaari kara qaybta ugu hooseysa ee badweynta.
sanadkii tegay 2023 waxaa ku dhinteen 5 qof oo ay ka mid yihiin wiil iyo aabihii oo maalqabeenna ah. dalxiisayaashan maalqabeennada ayaa doonayay inay soo arkaan haraagii markabkii Titanic ee burburay in ka badan 110 sano ka hor. dad badan oo caana ayaa horay u soo arkay haraaga markabka Titanic. waxaa ka mid ah agaasimaha filimada Hollywoodka James Cameron oo gacan ka geystay filimka Titanic sanadkii 1997. Cameron waxa uu 33 jeer u booqday burburka markabkii Titanic isagoo raacay doomaha quusa. dhacdadii Titanic waxaa hadda laga joogaa 112 sano. inta badan rakaabku way hurdayeen markii ay bilaabatay musiibada. xilli habeen madow ah ayuu markabka ku dhacay baraf weyn. markabku wuxuu ku jiray safar uu ku tagayo magaalada Southampton ee waddanka England, waxaana uu ku sii jeeday magaalada New York ee dalka Mareykanka. waxa uu markabka ku socday xawaare dhan 41 kilomitir saacadiiba 3 saacadood gudahoodba. xilli saq dhexe ah oo ku beegneed April 14 ilaa 15 sanadkii 1912 Titanic wuxuu ku quusay badweynta Atlantic. qiyaastii 1500 oo ruux ayaa ku geeriyooday markabkaas oo loo malayn jiray inuusan weligiis quusi karin. dhacdadan waxaa lagu tilmaamaa musiibadii ugu xumeed ee badda ka dhacda muddo 110 sano ee la soo dhaafay. sanadkii 2023 meel u jirta 400 oo meel xeebaha Atlantic ee dalka Canada ayaa waxaa laga bilaabay baadigoob lagu jiro aalad yar oo u samaysan sida doon qalifsan. doontaas waxaa la yidhaahdaa Titan, waxaana maamusha oo iska leh shirkad la yidhaahdo Ocean Gate. doontaas waxaa loogu talagalay inay qaaddo dadka doonaya inay soo arkaan markabka caanka ee Titanic ee quusay sanadkii 1912 kaasoo iminka yaala meel jooga badda ka hoosaysa 12,500 oo dhudhun. hore dad ayay doontaas u qaaday dibna u soo celisay ayagoo badqabaan, balse sanadkii 2023 xaaladdu sidaasi way ka duuneed. doontan waxa ay ka samaysan tahay dhuun ama tuubo loogu talagalay inay qaaddo dhowr qof muddo gaaban. dhererka Titan wuxuu la egyahay 6.7 mitir, ballaciisana waa 2.8 mitir, jooggiisana waa 2.5 mitir sida laga soo xigtay shirkadda iska leh ee Ocean Gate. shirkadda Ocean Gate oo maamusha doonta waxay calaa qof ka qaadaa $250,000. wadarta guud ee 5 qof ee dalxiisayaasha sanadkii 2013 ay bixiyeen waa $1,250,000. haddaba waa kuwii dadkii ku dhintay doonta sanadkii 2023. Hamish Harding waa guddoomiyaha shirkadda Action Aviation, waana maalqabeen Britain u dhashay. shirkaddiisu waxay shirkadaha caalamiga, madaxda caalamka iyo shakhsiyaadka caanka ee ku jira madadaalada iyo cayaaraha ka iibisaa diyaaradaha lagu raaxaysto. hore wuxuu u noqday sida laga soo xigtay diiwaanka Guinness qofkii ugu dhaqsiyaha badan ee sameeyey duulimaad lagu dul wareegay dunida, kaasoo isaga iyo koox la socotay ay ku sameeyeen 46 saacadood. Shahzada Daawud waa 48 sano jir guddoomiye ku-xigeenka ah shirkadda Daawud Hakuls. waa shirkadda wax maalgelisa oo saldhiggeedu yahay magaalada Karachi. shirkaddaasi waxay ka mid tahay Daawud Group oo ah ganacsi qoys ay leeyihiin. sidoo kale waa nin kale dhaxalka qoyska sida laga soo xigtay wargeyska New York Times. Suleymaan waxaa dhalay Shahzada Daawud, waana wiil 19 sano jir ahaa sida laga soo xigtay warbaahinta UK oo aad u jecelay sayniska iyo cayaaraha kubadda laaliska. Paul Henry wuxuu ku magac dheer yahay qabiirka Titanic sida lagu qoray barta shirkadda Ocean Gate. wuxuu horkacayay 6 goor oo socdaal lagu aaday markabka Titanic ee badda hoosteeda fadhiya. wuxuu kaloo agaasimo ka ahay shirkadda Americana oo cilmi baarista badda hoosteeda samaysa oo la yiraahdo RMS Titanic Inc. Stockton Rush waa madaxa shirkadda Ocean Gate, waana ninkii waday doontaasi dadkii ay ku dhinteen sanadkii 2023 markii uu 19 sano jir ahaa. wuxuu noqday duuliyihii ugu da'da yaraa ee kaxeeya diyaaradaha xamuulka. wuxuu noqday duuliye diyaaradeed ee diyaaradda DC-8, wuxuuna shahaadada ka qaatay jaamacadda Princeton ee dalka Mareykanka sanadkii 1984. si kastaba ha ahaatee, waxaa aad loogu hayaa Larry Connor iyo saaxiibkiis oo doonaya inay isku dayaan
inay tagaan halka uu fadhiyo markabka Titanic.